madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu dhowr codsi oo isdaba joog ah u diraya maamulada Jubbaland iyo Puntland kuwaas oo ugu dambeyntii doonaya inuu la gaaro heshiis rasmi ah ka hor doorashada dalka ka dhici doonto intaanu la isugu imaan teendada Afisyooni ee sanada 2026. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii mowqifkiisa cadeeyay taasoo kaliya rajada uu leeyahay doorashada ka hor inay tahay inuu heshiis rasmi ah uu la gaaro wadahadalna uu la furo maamulada kala ah Puntland iyo Jubbaland. Puntland iyo Jubbaland hogaamiyaashooda Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Midoobe ayaa tan u arkaya mar kale fursad dahabi ah oo ay ugu faa'iideysan karaan danahooda iyo waxa ay ka doonayeen gudaha dalka ee Soomaaliya. sidoo kale waxay si rasmi ah u burburtay rajadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ahayd New Jubbaland kadib markii Mareykanka madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in halka doorashada rasmiga ka dhici doonto kaliya ay tahay teendada Afisyooni ee sanadka 2026. soo dhawaada daawadayaal waa anigoo Cali Shujaac halkani waa Arnan Somali TV marka hore intaan u gudgalin faafahinta warka like saara muuqaalka oo subscribe dhaha channelka kala socda ee YouTube-keena. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Xamsi Cabdi Barre ayaa ugu dambeyntii rajadooda ahayd New Jubbaland ayaa dib ugu laabtay dib u gurasho ku sameeyay kadib markii ay ogaadeen inay ku fashilmeen saaxadda siyaasadda ay ku wajihi karaan Jubbaland. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowr mar ka hadlay wuxuu sheegay in markan diyaar u yahay inuu miiska wadahadalka isugu yimaadaan sidoo kalena fursad uu siiyo madaxda kala ah Saciid Cabdullaahi Dani iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Islaam. ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonayay inuu aasaaso New Jubbaland taasoo caasimadeeda ay noqon lahayd gobolka Gedo. rajada ugu weyneedna ay ahayd in beesha Mareexaan halkaasi looga dhiso maamul kadibna weerar toos ay ku qaadaan caasimadda maamulkaasi Jubbaland ee Kismaayo. Axmed Midoobena gacanta ay ku soo dhigaan maxkamadda gobolka Banaadirna lagu maxkamadeeyo. waxaase fashilantay hadafkii iyo rajadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ahayd in New Jubbaland la aasaaso beesha Mareexaanna ay noqoto madaxweynaha Jubbaland taasoo ku soo dhamaatay fashil iyo waji gabax. maxaa keenay sababta in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dib ugu laabto fikirkiisa New Jubbaland isla markaana diyaar u yahay inuu heshiis iyo miiska wadahadalka isugu yimaadaan. sababta ugu weyn ayaa ah in kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka ee madasha samata bixinta ay diideen in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah isla markaana aysan ahayn waqtigeedii dhabta ahayd ee la joogo inay dalkan ay ka qabsoonto doorasho loo dhanyahay. mucaaradka doodo badan iyo kulamo badan ay la sameeyeen beesha caalamka iyo lixda awoodda leh oo loo yaqaano ay ugu horeyso dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka Turkigana qayb ay ka tahay. lixda awoodda leh ayaa ugu dambeyntii go'aansaday in dalkan aysan ka dhicin doorasho rasmi oo qof iyo cod ah taabadelkeedana ay ka dhacdo doorashooyinkii caadiga ahayd kadib kulamadaasi aad u tirada badnaa xarunta xalane magaalada Muqdisho beesha caalamka ay degan tahay ay isugu yimaadeen mucaaradka iyo lixda awoodda leh. waxaase la sheegaa in markaan la isku diyaarinayo teendada Afisyooni madaxweynaha Soomaaliyana kadib arintaasi Mareykanka amiraadii ugu dambeydna ay lahayd Mareykanka oo ahayd in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dalkan aysan u ogolaan doonin Mareykan inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod wax la yiraahdo. sidoo kale ay sheegeen doorasho loo dhan yahay oo loo baahan yahayna oo dadku idilna ay ku wada qanacsan yihiin siyaasiyiinta ee saamileeda leh ay ogol yihiin inay dalka ay ka dhacdo. waxay sababteen mar kale loo laabto teendada Afisyooni sida darteedana madaxweynaha imaan doono 2026 uu noqon doono madaxweyne ka shaqeyn doona sidii dalkii loo aadi lahaa doorasho qof iyo codka sanada 30 iyo 31. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud arintaasi ayaa ku kalaftay inuu ogolaado in dalkan ay ka dhacdo doorashadii la isku ogaa ee caanka ahayd. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha ayaa mar isku khilaafay in maamulka cusub ee Jubbaland loo dhisi doono beesha Mareexaan taa oo caro xoogan ay ka dhalisay sidoo kalena khilaafyo hoosaad u dhaxeeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale xafiiska madaxweynaha ay sababtay. halka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu doonayay haddii Axmed Midoobe halkaasi laga eriyo Jubbaland in halkaasi loo dhisi doono qof ogaadeena oo matala beesha ra'iisul wasaaraha taabadelkeedana madaxweynaha Soomaaliya wuxuu doonayay
maadaama ogaadeenku iminkaba nafta ay ugu keeneen halkaasi uu doonayo beddelkeeda oo ah in qof mareexaana halkaasi u dhiibo markii ugu horeysana uu tijaabiyo si doorashooyinka soo socota ay beesha mareexaan iyo Jubbaland ay ugu taageeraan madaxweynaha Soomaaliya iminka Xasan Sheekh Maxamuud sidii mar kale dalka ugu soo laaban lahaa. kadib fashilka fursadaasi sidoo kale waxay fursad culus u saamaxday inay helaan maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ah in madaxweynaha Soomaaliya isaga uu raaligeliyo mar kalena uu diyaar u yahay una sheego in miiska wadahadalka isku yimaadaan Puntland iyo Jubbaland sidoo kalena uu ku qanciyo shuruudaha qaar ay wataana uu ka aqbali doono halka xuquuqaadkii rasmiga ay ku lahaan jireen ee dowladda federaalka Soomaaliya muddooyinka yar kooban ay heli doonaan sidoo kalena khidmado yar oo u gaara madaxda ay heli doonaan Axmed Madoobe iyo sidoo kale hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane. balse dhinaca Axmed Madoobe waxaa ka jira arrimo culus taasoo ay ka mid tahay in Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh ay si aad isku qabteen. Axmed Madoobena aysan u cuntamaynin waxa uu iminka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo sidoo kalena qorshaha Puntland iyo Jubbaland ay tahay kaliya in madaxweynaha Soomaaliya uusan ku soo laaban doonin kursigan mar kale maadaama intuu talada hayay kaliya uu ku mashquulay arrimaha Puntland iyo Jubbaland. xildhibaanada lagu soo doorto labada maamul qorshaha ugu weyn ay tahay in mar kale dib dambe aan loo dooran madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taasi ay doonayaan inay abaalmarin ay uga dhigaan intuu talada dalka u hayay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Arbacadii xaqiijiyay in dowladdiisu ay wado sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaqiijiyay in dowladdiisu ay wado wadahadalo ay la furtay maamulada kala ah Puntland iyo Jubbaland. tallaabadaas oo loogu gol leeyahay in lagu qaboojiyo khilaaf siyaasadeed oo qaraar oo sidoo kale curyaamiyay dib u habeynta qaran isla markaana huriyay iska horimaadyo hubeysan. ismarwaaga daba dheeraaday sidoo kale soo kala dhaxeeyay labadan dowlad goboleed ayaa weeqay geedi socodka dowlad dhisida Soomaaliya ee jilicsan isagoo sidoo kale halis ku ah inuu carqaladeeyo doorashooyin xasaasi ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi siiyay telefishinka Al Arabiya ayaa xaqiijiyay in wadahadaladu sidoo kale ay ka socdaan jihooyin kala duwan. weli waxaan wadahadal kula jirnaa Puntland iyo Jubbaland waxaana rajaynaynaa in arrinta Jubbaland la xaliyo doorashada ka hor ayuu hadalkiisa ku yiri. wadahadalka iyo sidoo kale is-aragyadu way sii socon doonaa ayuu kusoo gabagabiyay. madaxweynaha ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka ay tahay mudnaanta koowaad ee dowladdiisa ayna ku xigi doonaan doorashooyinka qaranka. si kastaba ahaatee dib u heshiisiinta la gaaro Puntland iyo Jubbaland ayaa loo arkaa mid muhiim u ah in geedi socod kasta doorasho uu noqdo mid lagu kalsoonaan karo dalka oo dhan. xiisadda Puntland ayaa bilaabatay bishii Maajo 2024 kadib markii baarlamaanka federaalka uu meelmariyay wax ka beddelada Suuriya. hogaamiyayaasha Puntland ayaa ku dooday in isbedeladaasi ay awoodda ku ururinayaan Muqdisho ayna wiiqayaan ismaamulka gobolada taasoo keentay in Garowe ay sidoo kale hakiso wada shaqayntii ay kala dhaxaysay dowladda federaalka.